بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني سؤالها فيسبوك dadweynaha Soomaaliyeed naga soo weydiiyaan isla markaana uu nooga jawaabo sheekeen ala barakeeyo Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiweli. Saailka koowaad wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sheekh. Ramadaankii waa dhamaaday waa la soo cibaadaystay hadday ahaan lahayd quraan akhriskii taraawiixdii tahajudkii dhalinyarada waxaa laga yaabaa qaarkood inay ku adkaato inay sii joogtayaan cibaadadaas marka sheekh sidee acmaasha wanaagsan lagu sii wadi karaa oo lagu daa'imi karaa ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الله وسؤال آد مهم وأن كلية هين لن يرضى لكن قف كستون مسلم رمضان كان مركو كبحه سيدو وجوتي عمل كونكسن مركو هرسي إنما الأعمال بالنيات أعمال شوانية هذه مركا رمضان كوجرتي نيادو أهد إله سبحانه وتعالى عملك وناسا إجعليسي وعملك حن الله سبحانه وتعالى إيقفوغي إلهي سبحانه وتعالى توفيق لأيك وافجنايا أو خيرك أيك وافجنايا الله سبحانه وتعالى كسيدة درادة كو وحاوه رئيس الإخلاص قفك إن إخلاص ولي ماذا وعملك وناسا وكيها عمل نياد إخلاص سيدو كالي in qofka uu ka tago dunuubta iyo macaasida qofkii salaada ay ku adkeed inuu salaada la yimaado qofkii xumaantii kala sameyn jiray ama dambi qarsan jiray ama dunuub kale waaweyn la imaan jiray inuu maaragtay ka fogaado dunuubta waaweyn yani waxaa loo baahan yahay ramadaanku waa madraso wax badan baan ka faa'iidnay quraankii la akhrin jiray salaatu leylkii wanaagii iyo khayrkii inuu sii socdo la rabaa lidaalika culimadu waxay yiraahdaan رمضان كوا قفزة يعني حكسينا يا دور تلابو أذكر أقادسه كدبها ونقن وهو نقن دنبيها ونقن هو نقن وحيابه أسمين يسوي حما إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أطوبت كانوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلهي سبحانه وتعالى قوة طوبت كان وللرماية وعمل في عن لي ماذا هلايان يبدل الله سيئاتهم حسنات إلهي سبحانه وتعالى حمان توضى يدن بيقوضى يوحو بدلا وناك عنو هدو أرين كان خالص كاي هيو أتاهي قف مخلص إلهي سبحانه وتعالى وكاتوض أقبلايا بل أعماش هذه حما يقول سبحانه وتعالى كو ناسن كو بدلا يعني مكا تلابض أقوه رسول الله إخلاصك تلابض لبعض وحوين أصحابتك كوجو هرسن وين نقول أصحاب ونكسن سكستاد أطوبت كنتي سكست وقفك وحوي أعمال في عنو لي ماذا هدو كل نقطة بأذي وكشري هدي كل نقطة وحوي دتكي ولسه حبيبي هدي وكل نقطة جروب يدي وكجرا أو ما أرتي برها بالشيء ما فيسبوك ما سناب شات كما إنستغرام كم وحيابيه هدو كل نقطة وحيقبض أنتي إن سلوا حيابها أو كل نقطة دم بيجهر أو كل نقطة مركا dembiga inaad ka baxdo ikhlaaska kooban mid labaadna waxa weeye environmentka kugu hareersan bay'ada kugu hareersan inaad ka baxdo oo bay'ad cusub aad gasho oo dad waxa weeye nadiif aad barato misaayidka dad baa ku baratay ramadaanka dad baa isku barateen khayrka iyo wanaaga dadkaas marka inaad maaragtay khayrkii iyo wanaagii iyo waxa weeye aad la sii wada u baahan tahay mid saddexaad waxa weeye adducaa ducadu الدعاء سلاح المؤمن الله سبحانه وتعالى بريضه ودعاء أتكد داشم إله يهنوني في كل صلاة وحنا يهدينا الصراط المستقيم الله وحنا وهنونسا طريقة أما الصراط كتوسن كالدعاء إن أدقفك وإن أدبديسه وقفك وحوي كد داله ووقت كستب إله سبحانه وتعالى وبريه إلهينا سبحانه وتعالى واجعلي هي أدون كيسة كان بريه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إلهي وحلا أنيقا إبريا أنيقا وحاوي وحي ويديستا مدى أفراد وحاوي لغوصو قبينا وحاوي إن قفك وقتي وكفائديستو ووقتي رمضان كواد أركيسيو دور مالين
ramadaanka oo wuxuu nala noqdayba waa 5 beri 6 beri ayuu noqday marka ramadaanka maadaama sidaa uu gaaban yahay nolosheenan waa sidaa marka cumriga aad buu yar yahay anytime ayaa Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa u noqonaysa marka in darsiga ramadaanka ka qaadano oo aan ku tabaqno waxa weeye nolosheena iyo anaga waxa weeye maciishada aan ku noolnahay waqtigina inuu uu yar yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu fa amma man taqa wa athara hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa qofkii xad gudba oo Allah subhanahu wa ta'ala xarigiisa waxa weeye aan haysan oo nolosha adduunyada ka hormariyo door bida kaas jahima ayaa ma'wa laakiin amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa qofkii ka baqada maqaamka rabbigiisa يوم القيامة كل ما تيه يوم القيامة فردا قفك ما انت وحاوي كبقضة قفكاسي ونهى النفس عن الهوى نفتنا كرب هوذا كرب وحيابها اجعاشها كرب وحارانت اي كل عيسو فإن الجنة هي الماء قفك هو يجيسا وجنة مقافة تسقضب اينو ان شاء الله تعالى كسكو بينا قفكنا مركز تسددوا وقاربوا مركز توادو دبي كدعو اينو صانق ضالو باهي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله نكدب بمكو قاعد عنا صوانقو استغفرت بدي توبة بدي أصحاب ونكسن الله صعو إخلاصك كد ذال دعاء كد ذال environment كذا بدل أنت صعدوا وحاول قفك إخلاصك ينيده أيا لو باهي إنه أدو كد ذالو إلهينا قفك دذال إلهي سبحانه وتعالى وحوي واهننا يا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يعني كوا ددالة وجهادة وحوي كل ددالة نفتوضا إلهي سبحانه وتعالى لنهدينهم سبلنا يكوا جهادة إلهي سبحانه وتعالى حرقي سينا قبصدان إلهي وهنون دونا أيوير الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاك الله خير شيخ سائلك لا دحولي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إلهي وحفظيه waxaan rabay su-aal inaan ku weydiiyo su-aashu waxay tahay ma soomi karaa 6da shawaal aniga oo laygu leeyahay soonkii waajibka ahaa mise marka aan gudo soonka waajibka ah ayaan soomaa 6da shawaal ما شاء الله وسؤال aad muhiim u ah siiba gabdhaha ayaa aad waxa way weydiiyay maadaama ayagu bisha ramadaan ay maalmo leeyihiin inaysan soomeynin alxamdulillahi tacaala bisha ramadaan waa bil barakaysan markay dhamaato dee waxaa ku xigo shawaal fadli badan bay leedahay nabi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yihi man saama ramadaana uma atbacahu 6 min shawaal kaana ka siyaami dahr qofkii sooma ramadaan kadibna 6 beri ku xijiya wuxuu la mid yahay qof soomay sanadkoo dhan sidee ku dhacday waxay ku dhacday ramadaanku waa 30 beri 10 ku dhufo Allah subxaanahu wa tacaala camal kastaba waxa ugu yar oo laabo qofka muslimka ah waa 10 marka 30 waxa ku dhufataa 10 waa 300 maalin 6 beri 10 ku dhufo waa 6 beri waa sanadka oo dhan marka 360 iyo 6 maalmood weeye shawaal fadli baa ku soo arooray in la soomo laakiin marmar dadku qaar waxa ka tagay cudurin ma qofku waxa weeyay ama wuu xanuunsanaa ama musaafir buu ahaa waa uu afuray 10 beri lagu leeyahay مثلا ma waxa lagu leeyahay 7 beri ama 8 beri wuxuu hormarinayaa faradka kadibna sunnada ku xijinaya mise sunnadu waa uu soomi karaa sida saxda waxa weeye qofka shawaal inuu hormariyo gabadha sidoo kale shawaal inay hormariso ayaa muhiim ah ama ayaa wanaagsan li'annahu soonka qalaha ramadaanka waa ala tarakhi la ala al-fawr ma aha isla markii qofka inuu soomo laakiin waajibka waxa haysataa ilaa bisha dambe oo ramadaan ilaa sanadka dambe ramadaan aad haysataa inaad gudo lidalika Aisha radiyallahu anha waxay oran jirtay anigu maanan gudi jirin ramadaan ilaa fi shacbaan dambe baan gudi jiray ramadaan taasna waxa keentay makaanada nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga booskiisa maadaama xaaskiisa ay tahay marka sidaa daraateed qofka ama gabadhu waxay soomaysaa ayaduna 6da shawaal ay hormarinaysaa kadibna ramadaan qofka markuu waqti helo ayuu soomayaa saas ayaa fiican marna waxa laga yaabaa qofka inuu ka caajiso hadii uu faradkii uu bilaabo ama ay ku adkaato diintuna waa diin yusra yuriidu Allahu bikum al-yusra
walaa yuriidu bikum alcusr. marka waxaa la hor bilaabayaa shawaal, kadibna ayaa waxaa lagu xijinayaa maalmaha faradka ah oo la qalaynayo ramadaan. jazakum allahu khayr. jazaak allah sheekh, baarak allahu fiik. barnaamijkeeni su-aalaha facebook maanta xalaqadii intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. intaan ku kulmi doono barnaamij midkaan lamid ah, sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.